والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. maanta wax yar insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo ama idinka faa'iideeyo waxaan ka faa'iiday istighfaarta sida loo wada socono waa cajiib. laakiin nabi nuux uu ku lahaa qoomkiisa markuu ilaahay uga dacwoonayay nabi nuux calayhi salaam waxaan ku iri ilaahay dambi dhaaf weydiista waa dambi dhaaf badane wuxuu cirka idinka keenayaa roob badan wuxuuna idin kordhinayaa maalka iyo awlaada wiilasha wuxuuna ilaahay subxaana watacaala idin siinayaa beero iyo wadiyaal. marka xabiibaati waxaa ognahay in ay istighfaartu tahay wax aad iyo aad u muhiim ah. aniga waan tijaabiyey istighfaarta muddo 4 sano ah hadda toos baa ugu xirnaa istighfaarta waxaana ka faa'iiday waxyaabo badan. markii wixii la soo gudboonaadaan mushkilo markaa wax tabanayo markaan deeq dareemayo kulli waxaan sameeyaa istighfaar. waxaan dareemaa farxad waxaana dareemaa ilaahay subxaana watacaala inuu iga aqbalay istighfaartaydii ayna ii xalismaan wixii aan ka cabanayay. qofkii guursanaya waxaan kula talinayaa inuu istighfaar sameeyo, qofkii awlaad raadinaya inuu istighfaar sameeyo, qofkii maal raadinaya inuu istighfaar sameeyo, qofkii mashaakil la soo gudboonaado inuu istighfaar sameeyo. waxaa laga yaabaa inay dhahdo istighfaarta aniga waqti uma heli karo, waqtigayga waa buuxaa, waa shaqeeyaa. waxaan ku leeyahay markaa soconaysa tallaabada qaadaysidba astaghfirullah, subxaana allah, laa ilaaha ila allah, alxamdu lilah, wallahu akbar, walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcaziim. bas waxaa ma dhibayso waad socotaa markasta istighfaar samee. insha allah waxaa arkaysaa adigoo farxad iska dareemaya inkasta waxaa leedahay maxaa maanta ku faraxsanahay ma garanaysid laakiin istighfaarka sameynaysay deeq iyo hami iyo waxaasoo dhan insha allah ma dareemi doontid. marka insha allah waxaan qof kasta oo videoga iga arka ka codsanayaa inuu istighfaarta tijaabiyo, weliba khaasatan dadka dhalinyarada ah, qofka shaqada raadinaya, qofka guurka raadinaya, qofka awlaada raadinaya, qof kasta inuu istighfaarka sameeyo insha allah laasimo waqti kaama qaadanayso. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah xitaa markaad shaqo qabanaysid oo kale haddii aad istighfaarka qabatid way kuu fududaanaysaa biidni illah. intaas baa insha allah maanta fariinteeda ay ku eg tahay aa idinla wadaagayay faa'iidada aan ka helay istighfaarta. khayr fara badan baa idin rajaynayaa. asalaamu calaykum.